qaybtana waxaan ku bilaabi doonaa qaybihii taxanaha ahaa ee uu muriid sheekooyinkii ku saabsanaa inagoo qaybtan cusubna ku soo qaadayna cabsidii coronavirus gurbadii baandooga iyo kalluunkii badda ku helay muriidi wuxuu maalmahan soo dhaafi waayey gurigiisa wuxuuna maqlay coronavirus dadka da'da ah waa u daran yahay qolkiisa ayuu soo dhaafi waayey waxaana laga waayey goobihii uu la fariisan jiray saaxiibadiisa sida hotel malayka baar cashirow hotel madiina masjidka jaamacadda koodka iyo waddada rooma intaba waa laga waayey saaxiibadiisa oo dhan way la yaabeen waxayna isweydiiyeen in uu nool yahay iyo in kale majabe oo ka mid ahaa raggii ay saaxiibada ahaayeen iyo abshirow ayaa isweydiiyey abshirow ayaa weydiiyey majabe ninkii au muriidi ahay faro laguma haayo see wax u jiraan minankiisa ma soo martay majabe ayaa kolkaas ku jawaabay saaxiibow haddii ay wax jiraan waa la maqli lahaaye laakiin muriidi fuli waaye korona amaska dhuuntihee iyadoo sidii loo hadalhayo ayuu muriidi goobtii ay labadaas saaxiib ku sheekaysanayeen ee u dhow bayturaaskii hore ee degmada xamarweyne ee ka dambaysay xarunta maxkamadaha ee neeshanka agagaarkiisa ee wasaaradda cadaaladda uu muriidi goobtiiba ka soo xaadiray aad baa loola kaftamay iyadoo sidoo kalena loo muujiyey in laga walaacsanaa maqnaanshihiisa laakiin au muriidi labadoodaba uma dhowaanin wuxuuna ku bilaabay ha ii soo dhowaanina salaan marabi meeshiina iga jooga saaxiibadiis isla markiiba kuma soo dhicin waxa uu la jeeday waxay u qaateen in au muriidi looga dambeeyey oo uu malaha ismadax maray majabe ayaa weydiiyey saaxiibkiisa ninkan see camal waaye maku dhuftahee see camal waaye xabiib maa noogu wacdinoohee abshirow xaalka waa u cuntami waayey wuxuuna bilaabay inuu madaxa marba meel u weeciyo iyagoo markaa labadoodaba xaaladdu aad uga xumaatay laakiin au muriidi hadalka majabe uu dhufsaday wuxuuna ku qayliyey afkaa allah ku noqo in aan waasha maar jeceshahay bacaawiyaa laakiin mar keliya ayuu haddana au muriidi sheekada dhinac kale u rogay isagoo leh jidadkan xamar maxaa waaye haddii roob yimaado bes waaye waa burburaayaan markii hore maashamiintada lagu yareey si fiican ma loo dhisin miyaa lacagtii maa la kala cuni ma ogi roob asimaado bush lee waaye jid ma leh majabe oo culayska xanaaqii uu ka cabsanayey ee au muriidi ka degay ayaa ku jawaabay wax kale oo aan la filayn isagoo leh horta fawsiya korona ma ahane wax kale ma sheegi karto miyaa halkii mar oo ay soo hadasho dadka dhan waa qanxaanbe abshirow isagana mawduucaan loo jeegin ayuu meesha keenay isagoo leh unuga reer banaadir galmudug xaq ma kuluhin miyaa qoor dheere maas ahaay ma ogi madaxweynaha galmudug waxba ma noo oggolo miyaa saddexda oday sidii ay doodda noocyada kala duwan la u wadeen ayuu au muriidi oo sidii koroonaha u yimid aan bannaanka wareeggiisa jeclayn wuxuu dib ugu laabtay xaafaddiisii oo aan sidaa uga fogayn wuxuuna xaaskiisa bibisheek weydiistay in uu yaro nasanayo maadaama uu soomanaa wuxuuna ku yidhi carruurta buuqooda iga fogeeya hurdo quro dheer leh ayuu bartiisa ka misay waana kala dhacay odaygu waxaa dhibaato ku ahayd mar kasta oo uu maalnimo saxdo wuu qarwaa wuxuuna bilaabay inuu riyoodo saaxiibkiis kaleelow ayaa u yimid xilli habeen ah oo ceshihii ku beegan waxayna ku beegnayd xilli au muriidi wax yarka uu ka soo laabtay salaaddii ceshaa wuxuuna kaleelow u sheegay inay bannaanka u yara baxayaan si ay u soo wada tashadaan xaal qoyska gudihiisa ka jiray way saaceen intii ay sii socdeen way wada hadlayeen ilaa ugu dambayntii ay yara fariisteen derbi ku dhow kawaanka malayga oo dad yar ay weli ku ganacsanayeen inta badanna laga soo xarooday waxaa isugu baxay sheeko fiican ilaa markii dambe ay ku baraarugeen gaari shabaqla ah oo dad ka ururinaya magaalada au muriidi iyo kaleelow istaaga ayaa lagu yidhi waa xigtay kora baabuurka waxaad jebiseen sharcigii waad isku dhowaateen farahiinna ma dhaqdeen ka hortagga coronaviruska ayaad ku xadgudubteen waa la idin garatiiraya au muriidi cabaadkii ayaa ka dhammaaday isagoo leh ununka wax ma qabno see rabtiin na dhaafa waa la saaray baabuurkii waxaana kaleelow iyo au muriidi loo dhaadhiciyey isbitaal martiini meesha la geeyey waxay uga duwanaatay isbitaalkii
waxaana awmuriidi oo jaraynaya la dhex geliyey isbitaalka karantiilka. kuwo badan oo ku sii jiray oo xoogweynayaal noqday ayaa isla markiiba kuleetiga ku dhegay oo kor u qaaday dhulkana ku dhuftay oo haddana caloosha uga istaagay. awmuriidi ayaa aad u qayliyey isagoo leh iga celiya, waa dhintay iga celiya. xaaskiisii ayaa soo orday iyadoo leh muriidi see waay, maxaa kugu dhacay? maalin waa dariskeena maqlin. awmuriidi oo neef tuuraya ayaa hurdadii laga toosiyey. kadibna xaaskiisii ayaa weydiisay waxa ku dhacay. wuxuuna ku jawaabay wax darankii saaxiibkay ahay aaddoon na saaray. waxaasi dhahay waa tahriibaynaa, waa baxni, baddaan galnay, waxaana la jabtay doonti. isaga waa dabaashay, anigana wax yar kadib markii aan dabaashay amalaay igu soo shamuumay gogoosti, kabacdi waa qayli. daawadayaal taxniinii sheekadii awmuriidi maanta intaa haynoo joogto. sheekadan ayaa waxay noqon doontaa mid taxano noo noqota maalmaha soo socda insha allah. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن